xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxay maanta ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka 2018-2019 ee dawladda hoose waxaana ugu horeyntiiba ka warbixiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo xogayaha dawladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed Sheekh. taariikhdu tahay 7 bishii 10aad 2018 8 bishii 10aad 2018 waxa halkan isugu yimi xildhibaanada golaha deegaanka oo kalfadhi iyagii caadiga haba isugu yimaadeen waxa laga doonayay miisaaniyadii degmadu ay ku shaqeynaysay 2019 xildhibaanada waxa ka soo qayb galay xildhibaano gaaraya ilaa 17 xildhibaan dood ka bacdi iyo falanqayn sidii caadada noo ahaan jirtay ee qarankan aanu kaga tilmaanayn ee xildhibaanadeeda golaha deegaanku ay mar walba noo garab taagnaayeen horumarka degmada dhinac walba iyo isku duubnadayadii waxaanu maanta halkan ku ansixinay miisaaniyadii 19ka saa arkayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ugu mahad celinaynaa muddada 6 sanadood aanu joognay qorshe kasta oo miisaaniyadeeda ku salaysan inuu 90% noo fuliyay dabcan qof iyo labo ray ka duwan qaba marka horumarka laga hadlayo ee horusocodka laga hadlayo wanaagga laga hadlayo qof iyo laba de shaydaanku uu dhig wax u saarin la waay maayo miisaaniyadu maxay soo markii horeba si guud baanu miisaaniyada u soo dhigno xildhibaanku xaq u leeyahay inuu 2 cisho soo haysto 2 cisho soo akhriyay waa soo haysteen waa ka soo dhergeen halkan markii la biyayna waa laga dooday marka laga doodana de xaq maan u leeyahay gudoonku inuu yiraahdo miisaaniyada 2019 inaan cod galiyana xaq maan u leeyahay cod baa la galiyay codkana de cidii damba anagu de maanaan arkin in ragooda asixeeyay waxa ay ku kala duwan tahay kulli de dhaqaalo koboc uu sameeynaya laakiin labada waxba kuma kala duwan marka loo eego kororka dhinaca kasta loo eego iyo wixii hore noogu jiray ee inkastoo mashruucii GPLG-ga 2 sanadoodba aanu degmahan arag haddana waxa weeye waxay ku kala duwan yihiin difference ma ay jirto geeska kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco kuwaas oo sheegay miisaaniyadan in lagu ansixiyay cod aqlabiyada waxaana hadaladoodii kamid ahaa shirgudoonku codka galiyo miisaaniyada la ansixinayo de codka diiday iyo waa soo baxay codka ansixiyay alxamdulillah waxaan arkayay mala 2 xubnood mooyaan inta yadii kale waanu ansixinay si wanaagsan oo gobonimada way ku dhamaatay bismillaahir rahmaanir rahiim imika waxaan ka soo baxnay howlka dawladda hoose degmada Burco anagoo xildhibaanadii ah degmada waxaan ansixinay miisaaniyadii 2019 inagu soo socda waxaan filayaa ilaa 15 xildhibaan ilaa 16 xildhibaan inaan ku fadhinay halka goobta 12 xildhibaan way isku raaceen qaarna way ka aamuseen qaar labana waa diideen waxaan fadhiisanay kalfadhigii miisaaniyada aanu fadhiisanay dood badan baa meesha ka dhacday haddii beedankeeda leeyahay hoggaanka goluhu dhagu muujaqsiin waxa la soo qaaday in shaqaalaha loo kordhiyo mushaharka waxa la soo qaaday mashaariic fara badan in wax laga bedelo laakiin si ay u dhacdayba gudoomiyuhu wuxuu intaan doodii aan la qodobayn oo aan la waxayn waxa uu markiiba codsaday miisaaniyada dudubiya ku ansixiyay dudubkii waa dabadeedna gacanta loo taagay waxa la wixii xildhibaanadu ka doodayeen waxay noqotay wax kaba jiraan halka xisaabid laba keenin akhri waxa la isku raacay oo 12 xildhibaan codeeyeen in la ansixiyo saasaan ku noqotay miisaaniyada majority baa lagu ansixiyay waana la isku raacay goluhu 2017 2018 2019 saddexda miisaaniyadood waxay ahaayeen isku mid gudidii fulintu waxay soo bandhigi kari weyday xisaab celintii miisaaniyada taas oo ay ka muuqato inay madmadow badan jiro oo khaladaad badan uu jiro Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga badda cas 24 TV Burco.